maanta waxaan baranaynaa sida guriga loo sawiro. waxaan sameynaynaa marba waxbaan sawiraynaa, markaa kadib aan guriga muuqaalkiisa oo dhammaystiran baan u malaynaya inuu kasoo dhex bixi doono. marka bal aan ila socda igana daba sawira. marka koobaad waxaan sawirayaa muuqaalkan arkaysaan. waxaa la dhahaa baalkan af Soomaali waxaa lagu dhahaa leydig, laakiin waa labada dhinac uu iska leeg yahay, laba dhinacna uu iska leeg yahay. markaa kadib haddana waxaan ku dhex sawirayaa baalkan. markaan sawiro kalarkaas aniga aan ka helay, kalarkaas quruxda badan, waxaan ku dhex sawirayaa 4 gees daaqad ah oo dhinac xigta. waxaan haddana ku sawirayaa albaabkii oo daaqada waxyar aan u dhaweeyey, haddana la siman. waxaan sawiray haddana daaqadii kaleeto, haddana waxaan sawiray daaqad saddexaad oo waxaan ku sawiray daaqada kale geeskeeda, haddana waxaan sawiray daaqad saddexaad. intaas waxaa weeyaan waa gurigii wareegiisii iyo 4 daaqadood iyo albaabkoodii. guriga aan rabo inaan sawiro waa guri dabaqa, marka dabaqii hoose baan hadda sawirkiisii sameeyey. dabaqa saaran guriga hoose intii ahayd weeyaan. marka dabaq kore baan saarayaa, fooq koraan saarayaa. kalarkaas ayaan u sameeyey, fooq baan saaray. intii buu la egyahay, leydigii iyo leydigan waa isla egyahay, laakiin kalarkooda kala duwan. kadib haddana waxaan sameynayaa daaqad baan sawiray, haddana waxaan ka daba sawiray daaqad. awal halkaas meesha ku aadan albaabba ku aadanaa, laakiin dabaqa kore inta badan albaabku haddii uusan baalkoon lahayn gurigu albaab halkaa kuma yeelan karo. aniga waxaan rabaa mid iska fudud oo waqti dambaan gelin doonaa kuwa kaleeto oo qurux badan, laakiin kan hadda waa fiirinaynaa. haddana daaqad saddexaad baan sawiray, haddana daaqad afraad baan sawiray, haddana daaqad shanaad ayaan sawiray. hadda guriga waxaan sawiray hoos oo ah 4 daaqadood iyo albaab, dabaqa koobaad oo ah 5 daaqadood iyo wareegii guriga oo labada dhinacba aan saaray, hoos iyo korba. kadib ayaa haddana waxaan saarayaa saqafkii guriga kore, jiingadii ama saqaf saa u taqaanaan, geb saqafkaas saasaan u saaray. marka haddana halkan waxaa kasoo baxay guri 2 dabaq ah, guri hal fooq ah oo korna jiingad ay ka saaran tahay. intaas ayaan ku ekeynayaa ciyaalka. bal sawira idinkuna waa idi fiirinayaa saa u sawiraan. markaa kadibna qofka ugu fiican hadiyad buu leeyahay.